بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن صاحبيال meel walba waad joogtaan iyo si walba isarag maqalkaygu idiin soo gaaray halkani waa Israac TV waxaad ku soo dhawaataan falanqeyn kooban oo ku aadan xaaladda ugu dambaysa ee siyaasadda dalka halkay wax marayaan imaanshiyaha maaragtay agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka Fahad Yaasin haatanna ah la taliyaha amniga ee madaxweyne Farmaajo oo dalka dib ugu soo noqday saameynta ay ku yeelan karto maxaan ka ognahay ama maxaa maaragtay ka cusub iyo halkuu ku dambeeya khilaafkii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashooyinka guud ahaan haatan maanta waxaa la soo gudbiyey liiskii musharaxiintii maaragtay aqalka sare ee Somaliland oo maaragtay meesha kaliya aan weli la taabanin ah marka loo fiiriyo maamulada kale qodobadaas iyo maaragtay waxyaabaha ka dhalan kara iyo guud ahaanba maaragtay halkay u dambeyn doonto doorashada iyo guud ahaanba maaragtay siyaasadda Soomaaliya ayaan falanqeyn doonaa waxa ay la qayb qaadanaya falanqeeye maaragtay arrimaha siyaasadda maaragtay Soomaalida ugu dhundaloola kuna sugan dalka Mareykanka Cabdiraxmaan Khiyaar Cabdiraxmaan soo dhow waa ku dhawahay Fahad waa maasantahay adiga iyo Israac TV waa ku maasantihiin inaad soo qabateen aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan waxaan ku bilaabi doonaa maaragtay khilaafka maaragtay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maxaa la filan karaa maaragtay mar haddii khilaafku muddadaas uu taxnaa welina aan wax isu soo dhawaansha aanay muuqanin maxaa laga fili karaa Fahad waa mahadsantahay run ahaantii dee khilaafkan maadaama sidaan ogsoonnahayba uu muddo soo socday sida la ogsoon yahayna dadku khilaafkani wuxuu usoo shaacbaxay muddo dhow hase ahaatee sida aan la soconno khilaafkani waa khilaaf soo bilowdayba wax yar un kabacdi markii la magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hase ahaatee waxaanu ka filan karnaa arrintan khilaafka inuu horumarka soo socday iyo doorashooyinka Soomaaliya uu aad dib ugu dhigi karo waxaanse rajaynaynaa in khilaafkaas uu dhammaan doono si dhaqso ah walow mataqaanaa marar badan marka la fiiriyo Fuaadow khilaafkan uu saameyn badan uu ku yeeshay hab u socodkii shaqadii dowladda iyo horumarkii laga sameynayay arrimaha amniga iyo dhaqaalaha intaba sida laakiin aan ogsoonahay waxaa isku xilqaamay oo arrintan khilaafka ah sidii uu kusoo dhammaan lahaa dadaal badan ku bixinaya madaxweyne Qoorqoor iyo gudoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo xalaytana waxaa la sheegayaa horumar inuu ka jiro arrinta khilaafka lana rajeynayo inuu soo dhammaan doono mar dhow inta aan la soconno Cabdiraxmaan aad u mahadsan tahay waxaan ognahay wareegtida ugu dambeysay madaxweyne Farmaajo xafiiskiisa ka soo baxda waxay ahayd mid maaragtay awoodaha ra'iisul wasaaraha hoos loogu dhimayay taas oo maaragtay ra'iisul wasaaraha laftigiisa uu aad ugu dhiidhiyay soo dhawaansha tilmaamaysa in maaragtay laga yaabo inay suurto gasho miyaanay maaragtay arrintaasi si kala fogaan un aysan cadeynaynin mar haddii madaxweynihiina uu dhinacaas taagan yahay ra'iisul wasaarihiina uu dhankaa taagan yahay caqabad sama ku noqon kartaa howlaha doorashada Soomaaliya maadaama aad maaragtay arrimaha umuraha Soomaaliya aad ugu dhundulaasho run ahaantii waa la dhihi karaa in ay dibadhac ku keeni karto arrimaha doorashooyinka hase ahaatee waxaa jira culeysyo badan oo kaga imaanaya dhanka beesha caalamka sidaa ogsoon tahayba dhowr beri ka hor waxaa dhacay shirkii Security Councilka kaas oo looga hadlayay inay madaxda Soomaalidu ay khilaafkooda ay xaliyaan waxaana moodaa siyaabo hoose inay usoo baxayaan culeysyo badan oo la saarayo madaxda dowladda federaalka si ay khilaafkooda u dhameeyaan waxaa kamid a xalaytaan arkaynay inuu prime ministerka boggiisa Twitterka uu soo saaray arrin maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda oo Mareykanka oo kale ay xoogga saarayso in ay khilaafkooda hoos u dhigaan oo ay dhameeyaan si doorashada ay u socoto waxaana moodaa inaan wax dib u dhaca laga yeeli doonin oo arrimaha doorashooyinka ku yimaada waana tilaabada keli ah oo khilaafkan muddada soo socday lagu dhameyn karo waa in ay doorashada dhacdo si kastoo ay ahaataba waxaa lagu qasban yahay in waddanka uu doorasho aado si khilaafkan uu dhamaado waana wadada keli ah oo u furan hadda inay sameeyaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble walow aan moodid shaki badan iyo mataqaanaa kalsooni badan inay jirto hase ahaatee waa wadada keli ah oo noo furan hadda in waddanka hore uu sii socdo aad iyo aad u mahadsan tahay maamul goboleedyada dalka oo maaragtay qayb ka ah go'aamiyayaasha doorashada isla markaana maaragtay saameyntooda leh
waxa ay dhowaan 17 bishan ay shaaciyeen in 21 bisha oo maalinta ku beegan in shir uga furmi lahaa Garowe shalayse waxay soo saareen warsaxaafadeed ama warar ka soo baxay oo ku aadan in shirkaasi uu baaqday maxaa maaragtay aad kala socotaa Cabdiraxmaan ahaan baaqashada shirkaasi inay ka dambayso warar hoose soo baxay oo ognahayna ay sheegayaan in maaragtay qoorqoor madaxweynaha galmudug uu maaragtay heshiis maaragtay ama wada hadal uu socday ra'iisul wasaare Roble inay keentay in markaa uu ra'iisul wasaaraha ka codsaday inuu shirkaasi bal haddii dib loo dhigi kara ama la baajin kara la baajiyo marka isku xirka arrintaas sidee isu yeelan karaan maxaase kala socota adiga ka Cabdiraxmaan ahaan Fuaado marka dib loo laabto maamul goboleedyada waxaa moodaa inay mataqaanaa jaaniskan ay si degdeg ah ula soo boodeen arrintaana waxaad dareemaysaa inay muddo ay ku taamayeen in arrinta doorashooyinka inuu ayaga keligood u madax banaanaado marka waxaa moodaa markii khilaafka madaxweynaha iyo prime ministerka uu soo baxay kabacdi waxaa imaaday madaxweynihii iyo prime ministerkii inay isku turtuuraan oo prime ministerkii oo doorashooyinka hogaaminayay awoodiisii hoos loo dhigay warqadda madaxweynaha uu soo saaray ayay waxay ka faa'iideysanayeen maamul goboleedyada waana mid in muddo ah ay rabeen inay helaan jaanis bannaan ay ku helaan doorashooyinka si ay ayagu sida ay rabaan ay mataqaanaa doorashooyinka ugu maamulaan ama dhaqaalaha ha noqoto ama soo saaridda saaxiibada ayaga goonida u ah ha noqoto ama dee fursado badan oo doorashada ku jirta oo ama xiriirka beesha caalamka inuu banaanka ugu soo dhaco waana arrintaani waxay soo bilaabatay muddo fog marka loo laabto bilowgii horeba madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ayagu inay isqabteen oo ay ku dhawaaqi jireen madal oo ay mataqaanaa ay rabeen madashu inay socoto sidii horey dowladii hore ay madal u jiri jirtay marka sidaan xasuusano cabdiweli cali gaas oo ahaan jiray madaxweynihii hore Puntland had ka hor inuu sheegay 95% inay wadanka ayaga awoodiisa ama talada ay hayaan marka waxayba waarkeen jaanis ay sugayeen taate ma u malaynayo qorqoor dib u dhigiisii uu ka codsaday in dib loo dhigo inay baajisay laakiin waxaa jira culeysyo kale oo beesha caalamka kaga imaanayay kuwaas oo sheegaya in aysan arrintaani aysan samaynin sababta waxaa waaye waxay qayb ka qaadanayaan khilaafkii soo jiray oo madaxweynaha iyo prime inuu cirka sii galo prime minister uu dareemo culays fara badan doorashadiina ay dad badan ku kalsoonaan waayaan haddii ay gooni la noqdaan marka waxaa kaloo jira warar kaloo sheegaya in prime ministerku uu saaxiib uu leeyahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo arrintaas isaga laftigiisa uu kala hadlay oo xagaas uu deni oo rabay shirka inuu martigeliyo madaxweynaha Puntland inuu arrinta dib u dhigo marka waxaa arki doonaa maalmaha soo socda waxa ka soo baxa Fuaado laakiin siday u muuqato shirkaasi inuusan dhici doonin haddii wada hadalka u socda madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ay miradhal noqdaan shirkuna wuxuu ka dhici doonaa sidii caadiga ah magaalada Muqdisho inta aniga aan ka ogsoonahay waa intaas aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan waxaynu aadi doonaa maaragtay dhanka maaragtay Faad Yaasiin oo maaragtay ahaa hadda maaragtay la taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo horeyna maaragtay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu xilka uga qaaday uu ahaa markaa agaasimihii hay'adda NISA dhowaan waxaa la sheegay in safar uu soo ahaa Muqdisho lagu qashqashaaday Djibouti diyaaradda dib ay u noqotay maanta magaalada Muqdisho ka soo degay safarka magaalada Muqdisho uu ku yimid Faad Yaasiin saameynta ay ku yeelan kartaa guud ahaanba howlaha maaragtay socda iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelan kartaa khilaafkii taagnaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhaxeeyay oo la sheego sooska ama meesha uu ka soo bilowday inuu yahay maaragtay xilka qaadistiisa iyo arrimo asaga la xiriira marka maxaa laga filan karaa arrinta madab bay ku sii shidi doontaa maxaa la filan karaa Cabdiraxmaan ahaan markaad analyze garayso run ahaantii Fuaado maatinka taliya hore nabad sugidda ee Soomaaliya sida la filayo arrintan oo muddada soo taagneed oo Ikraan Tahliil culayska badan keentay oo doorashooyinkii iyo khalkhalka amniga wadanka aad mataqaanaa cirka ugu shareertay waxaa moodaa in ay wax iska bedeli doonaan waxaa kaloo sida la sugaya oo ka qayb geli doonaa mar labaadna shir uu iclaamin doonaa madaxweynaha oo looga hadli doono arrimaha amniga qaranka kuwaas oo Fuaad Yaasiin uu codsaday in uu mataqaanaa wixii asaga uu hayo oo cadeyna uu keeni doono balse waxay u muuqataa inay muhiim ay ahayd imaatinka
agaasimihii hore ee nabad sugidda maadaama arrin taagan oo kasoo bilaabatay oo loo haysto hay-adda uu madaxa ka ahaa marka guud ahaan wax hadda aan mataqaanaa hadda saadaal guda oo laga bixin karo in ay mataqaanaa arrintu kasii darayso ma u muuqato laakiin waxaa moodaa inay wax walba ay isbedeli doonaan imaatinka Fahad iyo ninka la yiraahdo dhexdhexaadinta qorqoor iyo marka la isku daro gabi ahaanba xaalad waxaa moodaa inay dib ay ka xasili doonto waxaa kaloo moodaa in uu imaatinka agaasimihii hore nabad sugidda ahna la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha ay filo Soomaaliya aad u sugeysay oo mataqaanaa laacib weyn oo siyaasadeed oo xagga doorashooyinka ah maadaama doorashada ay bilaabatay inay arrintaasina ay muhiim u ahayd inuu soo xaroodo inta aan ka sheegi kara intaas waaye hase ahaatee waan arki doonaa si ay wax noqdaan insha allah aad iyo aad u mahadsantahay cabdiraxmaanow sida wanaagsan ee maaragtay aad waqtiga noo siinayso waana kaaga mahad celinaynaa waxaan rabay inaan su-aashii ugu dambeysay ku weydiiyo oo ah Soomaaliya maaragtay aad bay u arkaysay ama maaragtay experience fiican ay u haysataa madaxweynaha ra'iisul wasaare iskhilaafa markii ugu dambeysay ma ahan markii ugu horeysayna ma ahan wax maaragtay waxa waaye soo taxnaa waaye goormee laga bixi karaa dhibkan maaragtay ra'iisul wasaare iyo madaxweynihiisa isku dhegan oo maaragtay xalkooda la heli karaa oo dalku uu noqon doonaa maaragtay in iyadoo la iswada socdo ama la wada socdo oo howlaha dalka u yaala la gudanayo maaragtay la dhamaystiri karaa waqtiga ay la doortay loogu talagalay ay si wanaaga uga wada dhamaysan karaan aday aragtidaada si ila muuqato dhibka ugu weyn oo mar walba soo celceliyay khilaafka u dhexeeya madaxda sare dowladda federaalka ah waa mid ku fadhiya dastuurka Soomaaliya oo qabyo qoraalka kaas oon si cad u kala qeexaynin awoodaha rasmiga oo madaxdu kala leeyihiin dhibka kaloo jira waxaa waaye maxkamadii dastuuriga ahayd oo kala saari lahayd markii ay isqabtaan madaxdana inay meesha ka maqan tahay marka waxaan filayaa markii dastuurka lagu caddeeyo awoodaha ay kala leeyihiin madaxda qabyo qoraalka dastuurka ana la dhamaystiro maxkamadii dee ku shaqo lahayd dastuuriga ahaydna la dhiso waxaa iska yaraan doona khilaafka awoodan isbarbar yaaca ah ayadoo Soomaalida saan ogsoonahyna arrinta kaloo dhibka kaloo ay ku haysa ay tahay habkan wax loo qaybsado oo 4.5 ka ah kaas oo shakhsi walba meesha fadhiya uu asagu aaminsan yahay kursigan inuu ugu fadhiyo si beelaysan taas oo marka ay doorasho rasmi ah ay timaado oo shacabka Soomaaliyeed ay doortaan qofka ay rabaan dastuurkana la dhamaystiro oo laga saaro qabyo qoraalka awoodahana lagu caddeeyo maxkamadiina la dhiso waxaa iska dhamaan doonta in la iska qabsado insha Allah waa saan rajeynayna mustaqbalka waa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay cabdiraxmaan waa kaaga mahad celinayna sida wanaagsan ee maaragtay aad waqtigaaga noo siisay saaxiibayaal barnaamijkeeni koobnaa falanqaynta ku aadanaa xaaladii ugu dambeysay ama xaaladii ugu dambeeyay guud ahaanba dalka wanaga inta saaxiibkay cabdiraxmaan khiyaar oo kamid ah maaragtay falanqeeyaasha ama dadka siyaasadda Soomaaliya u dhundulolaya barnaamijka igala qayb qaadanayay aniga saaxiibkay waxaan leenahay fi amaanillah waxaan ka codsanaynaa maaragtay muuqaalkan share garaysan la wadaagtaan asxaabtiina haddii meesha aad naga daawanayso inay tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay waxaan ka codsanaynaa inaad maaragtay subscribe tiraahdo isla markaana aad gambaleel ka taabataan haddii Facebook ay tahay meesha aad nagala socotaan aad follow tirahdaan isla markaana alla garaysaan si maaragtay warbixinada iyo maaragtay barnaamijyada aan annaga samayno aad u noqotaan dadka ugu horeeya aad iyo aad u mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tegayaa fi amaanillah